Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waxaan ku sheegi doonaa dhowr waxyaabood oo ay si 10 sano soo socda uga dhici doonaan. Horta waxayna sugayeen casri deganaansho uu ku yaryahay sababtoo ah waxa dunida ka socda dagaalka ugu weyn ee lagu hayo waxa weeye kan ula dagaalamaya caqiidada oo ah diinteena Islaamka. Kheyraadka dunida oo sii yaraanaya iyo halganka lagu jiro tamarta keedka ah ee qaaradda Afrika ayaa sii kordhaya waxaana sababi kara halaag iyo hoog. Marka sanayso wax isbeddelaya jiilkeena oo socda oo aan wax badan ka aqaanin dhaqankooda iyo afkooda iyo diintooda laakiin aqaana aalada cusub sida loogu dagaalamo. Waxaana badanaya burburka qoyska waayo waxa lagula jira dagaal joogto ah waa haddii aanan iska qaban kuwa dagaalka lagula jira. waxa dunida laba siyaasad lama yaqaano hanti wadaag oo waxa bedelaya habkii ummad kasta la saxan. Afrika ayaa noqonaysa qaaradda ugu hantida badan ama ugu dadka badan waxaana badanaya dagaalada ay nagu hayaan sirdoonadu iyo howlgallada qarsoodiga ah maadaama aan la rabin dagaal foolka fool ah. waxaana badanaya biyaha dhulka oogada sare ama badaha waxaana noqonayaan biyuhu dhulka 25% wadamada carabta ayaa hogaamin doonta Afrika marka la eego xagga aqoonta iyo xagga military ahaantaba. waxaana burburi doona ururo caalami ah sida qaramada midoobay, gaashaanbuurta NATO, midowga Yurub iyo qaar kaloo badan. isbeddelka cimilada ayaa heerkii ugu dambeeyay gaadhaya qoob noqonaya waxaana dadku aamin doonaan caqiidada ama diinteena Islaamka oo dad badan ayaana aamin doona oo soo geli doona diinta Islaamka halka ay ka aaminayaan diinta Masiixiga ama diinta Masiixiga oo ka tahay. magaalada Burco ayaa noqonaysa caasimadda Soomaaliland waxayna weydiin sababta bal haddaba dib wax laga baahan 10 sano soo socda maxaa isla dhici karaan ama maxaa isla wada saadaalin kartaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.